shimbirka la yiraahdo waa taqaanaan gorgorka waa naqaanaa Soomo shimbirkaas daadiisa yaa yaqaana shimbirka daada uu ku dhinto wuxuu gaadhaa baa la yiri taqriiban ilaa 75 sano meelahaas uu gaadhaa tolosay ku gaadhaa waxay dhaheen markuu gaadho daadiisu markay gaadho 35 jir markuu gaadho inaad aragteen iyo in kale ma ogiye shimbirkaasi xagee ku qaraataa ii sheega su'aasha dadka ay weydiinayaan wuxuu wax ku qabsadaa waa maxay waa cidiyaha iyo cidiyuhu wax ku qabsadaa afkana waxbuu isagana ku qabtaayo ku dilaa markuu daadiisu inta ay gaadho taqriiban meelaha markay gaadho waxay dhaheen hawlgab buu noqonayaa cidiyihiisina wax ma goynayaan afkiisina waxba uma cunayo oo ma suurtagelaysa inuu wax cuno maxaa dhacaya marka wuxuu u baahan yahay bay dhaheen markaas inuu isbedel sameeyo wuxuu ku qasban yahay marka isbedelkaasi uu sameeyo hawl shaqo marka qabanaya wuu duulahayaa buur dusheed buu tagayaa ama geed daladii ayuu fuulayaa meel cidla ah ka bacdi halkaas 3 bilood buu halkaas saaranayaa baa leeyahay 3 bilood markuu halka uu joogo baa waxa dhacay cidiyihii shaqayn waayay way ka muldhanayaan oo way ka baxayaan cidiyihii markay ka baxaan hadana afkii isaga haye waxba uu ugaari waayay ayuu dhagax la dhacaya oo iska muldhinayaa misadxaad baan ka tagay oo ahaa baadadkii waaweynaa oo ku cuslaaday oo socon waayay ayaa waxa dhacaya iyagana kuwii hore uu iska tuurayaa kuwa yar soo baxaya isagoo marka dhalin yaroobay ayuu soo duulaya oo marka xamaasada iyo wax ka muuqda in caadi ay ka muuqato maxaa dhacaya marka shimbirka 35 sano hadii uu san isbedelka sameyn lahayn maxaa ku dhici lahaa ma taqaanaan maxaa ku dhici lahaa jawaabtu waad garanaysaan hadduu waxba cunin waxba cabin waxba kasbanin maxaa dhacaya tuu dhimanaya Soomo jawaabtu asaas uu dhimanaya laakiin markuu isbedel sameeyo maxaa dhacaya meeqasar uu dib u soo noolaanaya 40 iyo meeqasar uu dib u soo noolaaday 40 sano dib u soo noolaanaya halka maxaad ka fahanteen waxa la yiraahdo isbedelku hatta waxay dhaheen dadka buunbuuniyay cimriga ummadda ayuu dheerayaa qofka cimrigiisa ayuu dheerayaa fiiri ummad si hoobanaysay markay isbedel ku dhacdo ummadda cimrigeediba cimrigu waa barakada wax kale ma aha dadka isbedelku marka saas horta qiimo u leeyahay Allahna wuxuu leeyahay inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim isbedelka aan raadinaynana qof